fadlan subscribe saar وبالإعجابي. salaamullaahi calaykum daawadayaal kusoo dhowaada falanqayntii ciyaarta xalay toole kusoo dhammaatay barbardhaca hal iyo halka ee dhex martay kooxaha manchester city iyo shakhtar donestic dhegeystayaal sidaad wada ogsoontihiin ciyaarta haafkii hore waxa uu ku dhammaaday barbaro gool la-aan ah iyadoo ay kubadda inta ugu badan haysatay kooxda manchester city. daawadayaal ciyaarta markii la isugu soo noqday haafkii dambe waxaa la hormartay goolka koowaad kooxda manchester city daqiiqadii 56 waxaana saxay laacibka khadka dhexe uga ciyaara ee ilkay gundogan kaasoo caawin ka helay weeraryahanka reer brazil gabriel jesus. kooxda martida ahayd ee shakhtar donestic ayaa keentay goolka barbardhaca daqiiqadii 69aad waxaana u saxay weeraryahanka solomon oo bedel kusoo galay ciyaarta daqiiqadii 65aad kaasoo caawin ka helay saaxiibkiisa dambeedka midig ee doodo. haddaba haddii aynu ka hadalno qiimeynta ciyaarta, kooxda manchester city ayaa lahayd gacanta sareysa iyada oo shuutiskeedii uu gaadhay 16 laag halka ay kooxda kasoo horjeeda ee shakhtar donestic ay samaysay 7 laag, waana in ka yar leeblaabka inta ay samaysay kooxda manchester city. haddii aynu ka hadalno dhanka goolwadayaasha, labada goolwadaha manchester city waxa uu sameeyey hal seef halka goolwadaha dhigiisa ee shakhtar donestic uu sameeyey 5 seef. dhinaca koornayaasha, kooxda manchester city ayaa lahayd gacanta sareysa iyadoo heshay 6 koorne halka ay shakhtar heshay 3 koorne. dhanka boosishanka haddaan ka hadalno, kooxda sky blues ayay kubadhaysashadeeda gaadhay 63 halka ay dhigeeda shakhtar ay haysatay 37 boqolkiiba. haddii aynu ka hadalno dhanka xanaaqadaha amba fawliska, manchester city ayaa heshay 13 faawal halka ay shakhtar heshay 5 faawal oo qorata. haddaba taageere, waxaad u jeedaa inay kooxda manchester city ay lahayd fursadaha ugu badan ama ee gool lagu dhalin karo ama jaanisyada ugu badan, haddana ciyaartu waxay kusoo dhamaatay barbardhac 1 gool iyo 1 goola. kooxda shakhtar donestic waa koox aan innaba caadi ahayn, xalay toolana waxay soo bandhigtay ciyaar wanaag maadaama oo ay hakisay weerarka kooxda lagu naanayso muwaadiniinta. tababare Pep Guardiola ayaa waxa uu sameeyey 2 bedel isagoo daqiiqadii 70aad saaray laacibka khadka dhexe ee Kevin De Bruyne isagoo soo geliyey kabtanka kooxda David Silva kaas oo kasoo noqday dhaawac. waxyar kabacdi Pep ayaa haddana saaray laacibka khadka dhexe Rodrigo isagoo soo geliyey da'yarka Phil Foden. dhanka kale haddaynu ka hadalno rating of players ama qiimeynta ciyaartooyda, laacibinta shakhtar donestic ayaa ka qiimeyn sareeyay wiilasha Pep Guardiola. laacibka garoonka ama man of the match waxaa ku guuleystay dambeedka shakhtar donestic dodo isaga oo helay qiimeyn dhan 7.7. sidoo kale waxaa fiicnaa goolahayaha shakhtar donestic Baitov kaas oo helay 7.1. sidoo kale waxaan la iloobi karin Junior Moraes oo u taagnaa kooxda shakhtar lambar 9 isaga oo helay qiimeyn dhan 6.7. dhanka manchester city waxaa ugu qiimeyn sareeyay Gundogan isaga oo helay 7.6. sidoo kale waxaa fiicnaa Gabriel Jesus oo asisti lahaa isaga oo helay qiimeyn dhan 6. run ahaantii ciyaartooyda manchester city marka loo barbardhigo kuwa shakhtar donestic aad ayay uga hooseeyaan xagga qiimeynta. haddaba daawade, maxaad soran kartaa way ka khaldanaayeen shaxda Guardiola? waxaan la iloobi karin in kooxda sky blues ay iska xaadirisay wareegga 16 Champions League iyadoo uu harsan yahay hal kulan. waxaan halkaasi kusoo afmeerayaa falanqayntii ciyaartii xalay toole dhex martay kooxaha manchester city iyo shakhtar donestic taasoo kusoo ilaatay barbardhac 1 gool iyo 1 gool ah. fadlan daawade, subscribe channelka, leeg nagu dhiirigeli, wixii talo iyo tusaalahana kommentiga noogu reeb. waxaan idinkaga tegayaa is aragti dambe.